shanta wadan ee dunida ugu muslimka badan taamicneedu ma aha boqolkiiba intee ay dalkaasi ka islaama ee waxa weeyaan dadka dalkaasi islaamka ah dadka dalka degan ee islaamka intee ay yihiin numberkooda way kaalinta shanaad waxa gashay ama ah dalka Egypt ama Masar dalkaasi waxa ku nool 100.3 milyan oo qof oo islaama taamicneedu waxa weeyaan 100 milyan iyo 300,000 oo qof oo muslim ah ku nool taasoo dhiganta 94 boqolkiiba dadka dalkaasi degan inay yihiin islaam boqolkiiba 5 dadka dalkaasi degan waxay yihiin kristaan boqolkiiba halna waxay yihiin dad bilaa diina way kaalinta afraad waxa weeyaan Nigeria waxa ku nool 103 milyan oo qof oo islaam taasoo dhigmaysa 50 boqolkiiba dadka dalkaasi degan inay yihiin islaam inta kale soo hadhay waa diinta kristaanka iyo dad diin la'aan kaalinta saddexaad waa Bangladesh waxa dalkaasi jooga 140 milyan oo qof oo islaam taasoo dhiganta 89.1 inay yihiin boqolkiiba islaam oo number ku dhow 90 boqolkiiba ku dhow boqolkiiba 10 dadka dalkaasi degan waxa weeyaan hinduuga diinta la yiraahdo haystaan boqolkiiba 9 waxa weeyaan buddhistka iyo kristaanka labada diimood oo qaybsamaan oo waxna hal boqolkiiba ka yar laakiin macnaheedu waxa weeyaan boqolkiiba 90 dalkaasi inuu yahay islaam oo dalka Bangladesh 140 milyan oo qof oo islaam ku nool kaalinta labaad waxa ku jira Pakistan waxa jooga 190 milyan oo qof oo muslim markaas Pakistan waxa lagu qiyaasaa ilaa 95 boqolkiiba dadka islaamka ee degan inay u badan yihiin inay yihiin aan idhaahdee sunni inay yihiin numberka shiicada dalkaasi ku nool aad ugu hooseeyaan numberka sunniga macnaheedu waxa weeyaan 190 milyan oo qof oo islaam ayaa degan dalka Pakistan kaalinta labaad bay ku jiraan kaalinta koowaad waxa ku jira dalka Indonesia waxa ku nool 273 milyan oo qof oo muslim ah waa dalka adduunka ugu islaamka badan leh waa 273 milyan oo qof oo islaam ah taasoo macnaheedu noqonayo inay yihiin number 99 boqolkiiba inay islaam yihiin dadka halkaas deganna 99 milyan inay yihiin boqolkiiba inay yihiin sunni majority-goodu yahay muuqaalkeena maanta oo koobnaa kuna saabsanaa shanta wadan ee dunida ugu muslimka badan intaas ayuu ku egyahay hadii aad ku cusubta channelkeena fadlan subscribe si aad u hesho muuqaaladan soo gelin doono mustaqbalka hadii aad ka mid tahay asxaabteena fadlan like wixii faalaana comment-ka nagu dhaaf waad mahadsantahay